ugu horreysay oo dawlad goboleedka waqooyiga bari ay xusuustaan sidii loo aas-aasay xooggii iyo xoolihii la geliyey iyo weliba xikmaddii lagu dhisay dawlad goboleedkan maanta farxaddiisa loo damaashaadayo. halkani waa bartimaha Laascaanood, caasimadda dawlad goboleedka waqooyiga bari. wiil iyo waayeel, askari tuuta gashan iyo dumar farxad ay ka muuqataba laamiga dhinacyadiisa ayaa la isugu soo baxay. marka laga soo tago in sanad guuro la xusayo, reer Laascaanood gaar ahaan caasimadan way uga duwan tahay maanta maalmihii adkaa ee ay soo mareen ka hor intaanan waqooyiga bari la unkin. shacabka dawlad goboleedka waqooyiga bari waxa u muuqatay inay la siman yihiin dawlad goboleedyada kale ee aas-aaskooda sanad walba xusa. damaashaadka maanta socda xalay ayuu ka soo bilowday. inta badan dadkan idin muuqda iskood ayay u soo baxeen, muxubbo iyo kalgacal ay u qabaan inay xusaan markii la unkay waqooyi bari ayaana isu keentay. inta Laascaanood ku damaashaadaysa waxaa ka badan in kaloo ka soo jeeda deegaanadan oo dibadda hambalyo iyo bogaadinba soo tuuraya. balse waqooyiga bari inkastoo ay sanad jirsadeen, haddana caqabado badan ayaa ku horgudban. sanad kadibna waqooyiga bari maanta inay jirto ka sokow hoggaankeeda waxaa looga fadhiyaa inuu ka gudbo qodxo badan oo dhinac siyaasadeed iyo dhinac kaleba kaga gudban. waana su'aalaha inta badan dadweynaha reer waqooyi bari helping you grow since 2015. Learn more. FTMO. isweydiinayaan in xalkoodu uu yahay mid dhow iyo mid fog oo u baahan dhabar adeeg iyo juhdi fara badan.